sida lagu xusay maqaal uu qoray website laga leeyahay dalka Kenya laguna magacaabo Tuka News waxa laga dayninayaa xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha guud Al-Shabaab Ahmed Cumar Abu Ubayda. caafimaad darrada Abu Ubayda ayaa website-ka waxa uu ku sheegay in muddooyinkan dambe ay taagneyd waxaana Al-Shabaab taasi u horseeday kala jab iyo khilaaf cusub sida la warinayo. ku-xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab Mahad Karatay afhayeenka guud ee ururkaasi Cali Dheere iyo nin kale oo magaciisa lagu sheegay Macalin Cusmaan ayaa isku khilaafsan cidda Abu Ubayda bedeli doonta kadib muddooyinkan dambe oo xaaladiisu ay noqotay mid ka soo daraysay sida maqaalka Tuka News lagu sheegay. Ahmed Cumar Abu Ubayda oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya Al-Shabaab wuxuu xilkaasi qabtay 2014 oo la dilay hogaamiyihii ka horreeyay ee Axmed Cabdi Godane oo Mareykanku u duqeyn la beegsaday. maqaalkan aan xiganayno ayaa waxaa lagu sheegay in warbixinno sirdoon ah oo ay aragtay Tuka News shaaca ka qaadeen in xaaladda caafimaad ee Ahmed Cumar Abu Ubayda ay ka soo daraysay 6 bilood ee la soo dhaafay. golaha shuurada ee Al-Shabaab ayaa la isugu yeeray sida la tilmaamayo iyagoona ka dooday qorshaha qoseeya xaaladda adag ee hogaamiyahooda laakiin waxa ay kulamadooda ku soo dhamaadeen isfahamwa sida ilo sirdoon ah ay xaqiijiyeen. ila wareedyo ururka dhexdiisa ah ayaa sidoo kale waxa ay xaqiijiyeen in ururku uu haatan yahay mid u qaybsan labo kadib xanuunka adag ee soo wajahay hogaamiyaha guud. maqaalkan laguma sheegin waxa uu yahay xanuunka haya Abu Ubayda. Al-Shabaab dhaqan uma ahan in shakhsi ay ku bedelaan waa si fudud ay ku bedelaan hogaamiyahooda. sidoo kalena dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ayaa weli ama ah kuwa leh qatartooda waxaana xanuunka la warinayo inuu hayo hogaamiyaha guud ee Al-Shabaab oo imaanaya iyadoo dhowr jiho ciidanka xoogga